aniga ahaan markaan beer dilaash ahaan iska hadlo wallaahi oo billaahi oo tallaahi hadda saddexdii waa maray ismalihii qof bili aadana oo kaa karaamo iyo sharaf badan baa jira inaana islahayn bili aadana kaa sarreeyana ismalihi weligayna isma odhan marka qofkanu wuxuu i dheer yahay baana garanaynba waxaan anigu dheerahay ummad ma dhicin ummad ma xadin qof ma dilin dhiig ma daadin intaaba waan dheerahay dadka ma dheerid camo adu taa waa ku qaldantay ma garatay beri baa waxaa la yidhaahaa meel baa ili diray shaqo meesha shaqada waxay ahayd meel dhakhtarka dadka walwaalan marka beeraha maartay beerteeda ayaa la hagaajinayay marka meeshii baan galay oo iska shaqaysanayay waxaa la yidhahaa marka waxay ahaayeen carruurta yara maartay macaaqiinta maartay beertii markaan galay markaa carruur yaryar oo markaa walwaalan ma garaysa ayaa agtayda ay timi anigoo meesha hagaajisanaya waxaa la yidhahaa waxay arkeen markaa waa isla kaftanay carruurta caadidii anigoo garantay waalan yihiin anigoo iskala kaftamaayo dee si qof waalan baan iska dhigay ma fahamtay أنا الدكتور بحكاس يقدر ونايا أو دكتور كهيستا وحركة وحي عرورن ماشي دي بيمادين أنا قبل عياريا أنا والله عياريا والله كفتميا حكاس قبانيا مركا waxaan ka dhigay inay meeshii igala shaqeeyaan ma fahamtay waa dadkii walwalaha doctorkii baa markaa baxay aan shaqada ka tagayay ayuu yeeray wuxuu niyow dad badan bay yimaada meeshan laakiin awal mar aan arko qof dadkii walwala la qoslaya la sheekeynaya oo waliba ka shaqaysiinaya waxa ku samaysay dadkan bigu yiri waxaan ku yiri meel walaal hadda soo gashid dad walwalan iska dhigtid qof caaqil oo waxa la yiraahdaa wax araga ma garaysa inta caaqilsan tahay adiga ka waalan marka meel waalan baa soo gashay waa in aaduna waalataa marka way fahmaysiin